dugsiyada al irshaad schools qiimaha iskuulada miqyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowr oo quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay maadadu waa Soomaali fasalada 8aad maanta waa 8 bishii waa bariis 1440 ayantuna waa laabil عشان maanta wuxuu ka saabsan dhismaha afka Soomaaliga ha u qaadan kale dhismaha afka Soomaaliga inuu leeyahay ciid iyo niis keeni doono goobta laakiin macallinka Carabigu markuu dhismaha luqadda Carabiga ka hadlayo wuxuu inoo qoraa naxwa macallinka Ingiriisiga wuxuu inoo qoraa grammar af Soomaaliga taa macnaheedii weeyi waa sida ay isku raacaan falalka magacyada iyo xuruufta habka ay isku raacaan ayaa la yiraahdaa dhismaha afka Soomaaliga macnaheeduna waa naxwa waxaana uu casharka u horeeyay yahay magac weydiinta ugu horeysa hadda maxay ujeedada casharka u dhigayna waxay tahay inuu saddex weydiimood u helo jawaab buuxda ama warcelin buuxda waa maxay magacu imisa ayaa magacyada loo qaybiyaa muxuu magacu marka horeba inoo faa'iideeyaa intaas in xal u heli doonaa su'aasha koowaad jawaabteedu waxay noqonaysaa warcelinta koowaad magacu waa yeedhmo kasta oo loogu yeedho qof xayawaan dhir walax noole ama manoole iyo wixii la mid ah magacyada oo dhan waxa loo qaybiyaa su'aashii labaad waa weydiintii labaad ee xagga ku soo haysan imisa ayaa loo qaybiyaa magacyada waxa loo qaybiyaa dhammaantood afar qaybood oo waaweyn kuwaas oo kala ah iyar isfahmno buugiina waxay ku taalaa inuu magacyadu u qaybsamaan laba qaybood laakiin waa qalad ku jira halka buugii fasalkii afraad waxay ku soo baranay laba qaybood eedkana laba kuwaas oo kala ah magac muuqda iyo magac qarsoon oo eedka ah magac guud iyo magac gaar ah waxay ku soo baranay fasalkii afraad waay magacu wuxuu inoo faa'iideeyaa magacu aynu soo argay su'aashaas ay weydiisay inoo taalay waa astaanta aynu ku kala saarno dadka xoolaha dhirta iyo walaxaha intaba ka soo qaad haddii aan magaciinu aanu ku jirin dhaatada dugsiga marka imtixaanka la idinka qaado maxaa lagu kala garan lahaa kii wanka galay kii dhacay iyo ka maqan ka jooga maxaa lagu kala garan lahaa haddaan magac jirin lama kala garteen marka faa'iidada magaca waxa kamid ah inaynu kala saarno walaxaha ashyaada dadka iyo duunyada intaba halkan waxa inoogu taala fiiro gaar ah waxaan filayaa ardayda fasalada 8aadka ee wiilashu way soo qaateen buuggii heesawleedka hore waan u siiyay laakiin gabdhaha waxaan ku boorinayaa inay soo diyaarsadaan buugga heesawleedka oo cutubka inagu soo socda hadii la haydhaa aynaan uga maarmaynin aan idin tilmaamo goobta ka heli doontaana madbacadaha kugu dhow waad ka diiday doontaa dad ka weydana ugu kaalay dugsiga gabdhaha Al-Irshaad Girls Primary School billahi tawfiiq dugsiyada al irshaad schools qiimaha iskuulada miqyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowr oo quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay